بسم الله الحمد لله waxaan soo gaarnay magaalada Beledweyne ana u nimid safar shaqo aniga iyo saraakiil ka tirsan qaybta 12aad iyo taliyaha danab 12aad intaasna waxaan u nimid Beledweyne inaan ka tashano saraakiisha joogtay halkan arrimaha amniga iyo sidii deegaamada loo xareyn lahaa shabaab ujeedka safarkeenu laba qorsho isku jiray boqosho dadkeenii iyo deegaanka halkan aan soo booqanaynay oo aan maartay walaalnimo iyo kala gacal badan aan u haynay iyo inaanu dad saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkan ku sugnaa inaanu kala tashano sida aan shaqo u qaybsan karno iyo sida aan dalka uga saari karno shabaab degmooyin badan bay haystaan dagaalkana meelo badan baa looga wadaa laakiin hadda waxaan rajeynayaa inaanu deegaamada ku heeraraysan deegaanka reer Galmudug iyo deegaanka Hirshabeelle inta u dhaxaysa aan dilaadno shabaab ka saarno qorshahaas ugu muhiimsanaa waxaa mahad celinayaa Ilaahay ka sokow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre noo suurtageliyay ama nagu caawinahay inaanu gaarno heegsiga in laga xoreeyo dalkan shabaab laga xoreeyo la dhiso ciidamo tayo leh la diyaariyo awoodii looga xoreyn lahaa shabaab wadankan shacabkana xornimo loogu soo celin lahaa degmooyinka la haysto marka taasaan Ilaahay uga mahad celinayaa arintaas ay madaxdu ay nagu dhiirigelisay masana nagu taakulanayso nagu taageerayso inaanu soconno inta ka nimaadna gaalkacyo nimaadna Beledweyne inta u dhaxaysana aan diyaargarow ka wadno waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo halkan nagu soo dhaweeyay oo caaway aan kula kulanay hooga uu ka degan yahay magaaladan marka asaguna aad buu arrimahan aan wada hadalnay una nagu baraarujiyay ama nagu dhiirigeliyay shaqada aan hor usii wadno hadii lahaydmo waxaan rabaa inaan halkan uga sheego ummadda Soomaaliyeed in maanta diyaar loo yahay in laga saaro argagixisada shabaab deegaamada ay ka haystaan reer Galmudug ama reer Hirshabeelle marka waxay noqonaysaa hadii lahaydmo inaan midnimo iyo gacan qabsi iyo gacan qabsano u midoowno dagaalkaas iyadoo aan helayno taageero buuxda ay noo ballan qaad dowladda federaalka hadii lahaydmo in ciidamadeena iyo shacabka iyo cid walba ay taageeri doonaan waa mahadsantihiin